kanna waa GPS-ka barta ay labada qiso oo videogan ku jirta ka dhacayso ee Maka al-Mukarrama iyo naska af carabiga ah ee Ibnu Jubayr iyo tarjumadeeda af Soomaaliga ah. Anna waxaan ahay Professor Dr. Xasan Sheekh Xuseen Cismaan oo macallin ka ahaa kulliyada xoolaha ee Jaamacadda Qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waa jimce 22 Shacbaan 1443 hijrada 23 Maarso 2022 miilaadiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan akhrinahayaa laba qiso oo videogan ku jirta. qisada hore waa bartuu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam fariistay oo ku nastay markuu ka soo gadoomay umrada una u socdo al-Madiina al-Munawwara. qisada labaadna waa qisada dhex martay Sayyidina Ibraahim alayhi salaamu iyo 4 shimbirood. Ibnu Jubayr wuxuu noolaa inta u dhaxaysa 539 ilaa 614 hijrada 1444 ilaa 1217 miilaadiga. wuxuuna kitaabkiisa Rixlatu Ibnu Jubayr oo lagu daabacay Daaru Saadir ee Beirut arliga Lubnaan 1907 boga 87 ku yiri warbixin Makka Allah Taala sharfe yaraadka weli ku yaala iyo akhbaarteeda. Makka waa magaalo uu Ilaahay Azza wa Jalla buuro dhex dhigay oo ku wareegsan sida dugaagad oo kale, waxayna ku taalaa bartamaha dooxo barakaysan. waana weyn tahay, ayna dheer tahay, ayna degi karaan khalqi badan oo Ilaahay Azza wa Jalla oo kaliya tiradooda ogsoon yahay. Makka waxay leedahay 3 albaab oo kala ah. kow, albaabka koowaad waa albaabka la yiraahdo al-Mu'alla, ayna dadku u maraan markay u socdaan qubuuraha barakaysan. qubuurahaas waa qubuuraha al-Mu'alla. albaabkaasu wuxuu ku yaalaa barta la yiraahdo al-Xujuun. qofka mara oo dhaafa waxaa bidixdiisa ku taala buur ay korkeeda jiir ku taalo. jiirtaas waxaa ku yaala raad hore, aathaar, landmark oo u eg burji kor u dheer oo kor u taagan. waxaa albaabkan ka baxa dadka u socda dariiqu al-Umra. jiirtan waxaa kaloo loo yaqaanaa Kuda,
waana isla midda uu xasaan bin thaabit gabayaaga nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ula dan lahaa gabaygiisa boor ayuu kiciyaa waana meesha kudaa la yidhaahdo. nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam maalinta furashada maka yowmu fatxu maka oo ahayd jimce 20 ramadaan ee sanadka 8aad ee hijrada wuxuu yidhi maka ka gala meeshuu xasaan magacaabay. meeshan waa isla meesha loo yaqaano alxujuun oo ku xusan gabayga alxaarith bin mudaad aljurhami eryadiisuna ahaayeen waxaad moodaa in inta u dhaxaysa alxujuun iyo asafa ayan joogin cid ku wehel yeesha ayna jirin cid maka habeenkii oo idil ku caweeya oo soo jeeda. oo annagaa ahaa dadkeeda deggan laakiin waxaan hindisnay oo aan qiimaha lahayn daraaddeed ayaa nalooga eryey. oo jurhum habeenkii ayay kacbada agteeda khamrana ku cabbi jirtay ayna ku caweyn jireen gabayana ku tirin jireen. qubuurahaas aan soo sheegnay waxaa ku duugan koox saxaabada ka mid ah iyo taabiciyiintaba iyo awliyo. qubadihii qubuurahooda ka kor dhisnaana way burbureen dadka magaalada degganna way halmaameen magacdooda. alxujuun waxaa kaloo ku yaala bartuu una jirta xabaalaha qiyaas 200 oo mitir marka loo socdo xaramka bartuu alxajaaj bin yuusuf allaha abaalmarintiisa xaqa ah ku abaalmariye ku waray jirka cabdullaahi bin zubayr bin alcawaam allaha labadooda raalli kan ahaadee kadib markuu madaxiisa u diray intuu gooyey dimashaq iyo alwaliidu bin cabdulmalik alamawi oo ahaa markaas boqorka amawiyiinta. bartan waxaa ku yiilay ilaa maanta waa warka ibnu rajab. bartan waxaa ku yiilay ilaa maanta oo maantana ku yaala guri kor u dheer oo uu qabiilka thaqiif ee ataa'if dega ka caroodeen in si joogto ah loogu lacnado alxajaaj bin yuusuf oo ayagaas ka dhashay thaqiif markaasay dumiyeen. markaad ka soo horjeedid xabaalahan waxaa dooxada ay daadadku maraan iyo laba buurood dhexdooda ku yaala masjid waxayna leeyihiin inuu masjidkan ku dhisan yahay meeshuu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam jinniga risaalada ugu gudbiyey oo bartaas sidaas loo sharfay waana masjidka maanta la yidhaahdo masjid uljinni. albaabkaas aan soo sheegnay waxaa looga baxaa dariiqa aada ataa'if iyo ciraaq iyo carafaat allaha naga dhigee kuwa istaaga. albaabkaas wuxuu magaalada uga yaalaa qorax ka soo bax waqooyi uuna u janjeeraa xagga bari. 2 albaabka almasfal oo ku yaala dhinaca hoose ee maka almukarama ugana yaala koonfur waana dariiqa maanta la yidhaahdo shaaricu ibraahim alkhaliil. dariiqa albaabkan ka baxa wuxuu aadaa yaman. khaalid bin alwaliid allah raalli ka ahaadee albaabkan ayuu ka soo galay maalinta furashada maka yowmu fatxu maka ee jimcaha 20 ramadaan ee sanadka 8aad ee hijrada. 3 albaabka saddexaad waa albaabka azaahir loona yaqaano oo kale baabulcumra albaabka cumrada wuxuuna ku yaalaa galbeedka magaalada. albaabkan ayuu ka baxaa dariiqa aada almadiina almunawara
magaalada rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo dariiqa aada ashaam iyo dariiqa jidda aada. dadka u socda atanciim albaabkan ayay ka baxaan, halkaasoo uu ku yaallo miiqaadka ugu dhow cidda doonaysa inay cumro u soo ixraamato. sidaas daraaddeed ayaa kaloo loogu bixiyey cumrada. atanciim waxay magaalada u jirtaa 1 miil, waxaana ku yaalla halkaas masjid. waxaa masjidka agtiisa iyo dariiqa ku yaalla meelo la fadhiisto oo dhagax ka samaysan. dariiqa oo idilna waxaa ku yaalla meelo la fadhiisto oo dhagax ka wada samaysan, una eg kuwa iskoollada ku yaalla oo sabuuradaha hoostooda ku yaalla. waxaana ku wadaa inay tahay miisku macallinku fadhiisto oo dhulka ka kor uga kacsan. bartuu nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam fadhiistay oo ku nastay. dhagaxan lagu fadhiisto waxaa kor yaalla oo kor saaran dhagax kale, laguna qoray masawir dugaagad oo kale ah oo lagu naqshay. waxay leeyihiin inay bartaanu tahay meeshuu nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam fadhiistay oo uu ku nastay markuu ka soo laabtay cumrada. dadka dhagaxan way dhunkadaan, waxayna dul saaraan dhabannadooda ayagoo ka barakaysanaya, taasoo ay xaq u leeyihiin oo ay jid u leeyihiin. dhagaxa taagan oo meesha lagu fadhiisto ku dul taagan oo aad videogan ka arkaysid waa midkuu ibnu jubayr xusay inuu nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam oo dhabarkiisa shariifka ah ku tiiriyey, oo ay muslimiintu isaga dabadiis dhunkanayeen, ayna dhabannadooda iyo gacnahooda marinayeen ayagoo ka barakaysanaya. dadka dhabarradooday dhagaxan saaraan si ay u helaan barakada inuu nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam jirkiisu dhagaxaas taabtay. anigu waxaan si fiican u fiiriyey meeshan lagu fadhiisto, oo sidaad videogan ka arkaysid waxaa ku yaalla daloollo ay ka muuqdaan ulo bir ah. marka waxaan u malaynayaa inuusan fadhigaanu hoos ka buuxin oo uu daloolo. sidaas daraaddeed ayaan anigu geeska uga fadhiistay oo aanan dhexdiisa fadhiisan. waxaad kaloo arkaysaa inuu qabri wax u eg ku yaallo meesha ugu sokaysa oo ugu horraysa ee fadhigan. waxaad mooddaa inay qubuuro kale ku yaallaan fadhigan. markaad soo dhaaftid albaabkaas oo aad socotid khulwa waa 184.8 sentimitir. qofka cumro u socda wuxuu bidixdiisa ka arkayaa waa qofka soo mara markaad ka soo gudubtid qabriga abulahab iyo haweentiisa umu jamiil. wuxuu bidixdiisa ka arkayaa dariiqa dhinaciisa 2 qabri. markaad albaabkan soo dhaaftid oo aad socotid khulwa oo ah 184.8 sentimitir, qofka cumro u socda wuxuu bidixdiisa ka arkayaa dariiqa dhinaciisa 2 qabri oo ay dhagax waaweyn dul saaran yihiin. dadku wuxuu leeyahay inay yihiin 2 qabri ee abulahab oo halkaas guri labaad ku lahaa oo gurigaas dhexdiisa ku dhintay. gurigiisa koowaadna wuxuu ku yiilay shicbu bani haashim ee maka dhexdeeda, iyo haweentiisa umu jamiil bintu xarb, walaasha la dhalatay abu sufyaan bin xarb. laga soo bilaabo waaga hore ilaa maanta waxaa caado noqotay in 2daas qabri
la dhagaxyeeyo oo ay dhagaxda lala dhacay isdul fuulaan ilaa ay 2 buurood oo waaweyn ka noqdeen. markaad 1 miil oo ah halka miil waa 1848.8 mitir, waa in ka yar 2 kiiloomitir. markaad 1 miil labadan qabri dhaaftid waxaad tegaysaa azaahir. waxay ka dhisan tahay dariiqa dhinaciisa, waxayna ka kooban tahay guri iyo beero, kulligoodna uu leeyahay nin reer Maka ah. wuxuu ninkaasu halkaas ka sameeyey meel ay yaalaan biyo lagu weyse qaato iyo biyo musqusha lala galo iyo kuwa dadka cumrada u socda ay ka cabbaan. dariiqa dhinaciisana waxaa ku yaalla dhulkan dukaan dheer oo ay yaalaan ibriiqyo yaryar oo ay ku jiraan biyo la cabbo iyo weelal ay ku jiraan biyo lagu weyse qaato. bartaas waxaa ku yaalla ceel ay dhici karto inuu hadda ku dhex jiro sanduuqa cagaaran oo aad fiidiyoga ka arkaysid. biyo macaan leh, biyihiisa ayaana weelashaas aan soo sheegnay laga buuxiyaa, taasoo waxtar weyn u leh dadka cumrada u socda oo cabba kana weyse qaata, musqushana u qaata. ajar badan ayuu ninka iska lihi ka helayaa. waxaa ninka hawshaas ka caawina rag badan oo uu isagu soo ijaartay. dadku wuxuu leeyahay inuu ninkaasu hawshaas faa'iidooyin badan ka helo. waxaan haddana akhrinayaa qisada labaad ee bartaas ka dhacday, ahna qisada nebi ibraahim calayhi salaamu iyo shimbiraha. bartaas labadeeda dhinac waana bartuu fadhiistay oo ku nastay nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam. ee dariiqa waxaa ku yaalla 4 buurood oo 2 dhinacan ku taallo, 2na dhinacan kale. buurahaas waxaa dul saaran calaamado dhagax ka samaysan. waxaana loo sheegay inay buurahani yihiin buuraha barakaysan oo uu ibraahim calayhi salaamu saaray qaybaha shimbiraha u gogooyey, kadibna u yeeray siduu noo sheegay ilaahay casa wajalla. kadib markuu ibraahim ilaahay jalla wa tacaala weydiiyey inuu tuso siduu naf dhimatay dib ugu soo nooleeyo. 4tan buurood hareerahooda buuro kale ayaa ku yaalla. waxay leeyihiin inuu ibraahim shimbiraha saaray 7 buurood oo buurahaas ka mid ah. runtana rabbi ayaa og. 4taas buurood oo ahaa buuro gaagaaban waa la burburiyey siday culummada sacuudigu sheegeen, oo hadda ma jiraan sidaad fiidiyogan ka arki kartid. waxayna ku yiileen meeshay carruurta banooniga ku cayaarayaan iyo kaltanka shidaalka ee asaacidi oo dhinac ah iyo dhismooyinka dhinaca kale ee dariiqa ku yaalla. dariiquna waa midka aada almadiina almunawara isagoo masjidu caaisha sii maraya calayhi assalaamu. haddaad azaahir dhaaftid adigoo xagga kacbada u socdana waxaad tegaysaa dooxada macruufka ah ee waadi dhiituwa, midda uu nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ku istaagay oo uu ku baryey markuu maka gelayey oo furanayey habeen jimcuhu soo gelahayo ee bisha ramadaan ay 20 tahay ee sanadka 8aad ee hijrada. ibnu cumar allaha labadoodaba raalli ka ahaadee halkaas wuu ku degi jiray oo ku qubaysan jiray isagoo nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ku dayanaya markuu maka almukarama gelayo. oo nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam biyaha ceelkaas waa ka qubaystay, waa ka weysaystay. sidaasuu ibnu cumar iyo muslimiintuba yeeli jireen
ilaa intuu ceelkaani furnaan jiray. waa dhoweyd unbaa la xiray. aali sacuud ayaa xiray. dooxadan waxaa ku yaala ceel loo yaqaano ceelal loo yaqaano ashubayka, waana dhinaca hotel intercontinental daarul tawxiid maanta la yiraahdo, oo bartaas waa ku dhigan yahay maantadan aan joogno oo aan duubayo videogan, waxaa ku dhigan ashubayka. ceelashu halkaas ayay ku ooli jireen. albalaadi wuxuu yidhi in dooxadan dhammaanteed la wada degay ayna ka mid yihiin xaafadaha alcutayba iyo jarwal iyo atandaawi iyo xaratu albarnu iyo inta badan ee shaaricu almansuur iyo kuwo kaleba. waadigan waxaa ku yaala masjid la yiri inuu yahay masjidu ibraahim, yacni masjidkii sayidina ibraahim uu ku tukan jiray calayhi salaamu. bal iska malee barakooyinka ku sugan dariiqan iyo inta calaamado rabbaani ah oo ku sugan dhexdiisa. atanciim markaad jiirtan dhaaftid waxaad tegaysaa jiir ciriiri ah ayna saaran yihiin dhagax waaweyn oo kala saaraya dhulka xalaasha ah iyo midka xaaraanta ah oo xaramka ah. dhulka xaramkuna ku jiro ilaa maka laga gaaro. dhagaxdan laga bilaabo ilaa maka waa xaram, inta dibaddooda ahna waa dhulka xalaasha ah. dhagaxdan kor ayay u dher yihiin, una safan yihiin, una midba midka kale ku xiga, mid yar iyo mid weynba. waagii horena calamana waa surnaan jireen. maantase dhagaxdii ayaa ku taalla oo lagu calaamadeeyey, oo xaramka dhinac kasta oo ka mid ah calaamadahaasa ku yaala, ay ku dhigan tahay xuduudulxaram. markaad dhalada buurta ka soo degatid waxaad xagga midigta u aadaysaa alcumra. dariiqu wuxuu tegayaa dhalada buurta, kadibna uu bidix u leexanayaa, kadibna waa miiqaadka qofka cumraysanaya. waa siduu dariiqu ahaa waagaas ibnu jubayr. maantana buurahaas waxba kama jiraan, iyo dariiqyadu meesha ku sheegayba kulligood waa la wada burburiyey, buurihii iyo jiirihii iyo dariiqyadiiba. waxaa halkaas ku yaala masjidyo badan oo dhagax ka wada dhisan, ayna ka ixraamtaan dadka cumraysanaya. waa hadalkii ibnu jubayr. masjidu caaisha allaha raalli ka ahaadee wuxuu ku yaalaa calaamadahan dibaddooda, una jiraa 2 khulwa oo u dhiganta 369.6 mitir. dadka raacsan madhabka imaam maalik ayaa masjidkan ka ixraamta. kuwa madhabka imaam shaafici raacsanna waxay ka ixraamtaan masaajidda ku yaala hareeraha calaamadahaas. masjida caaisha allaha raalli ka ahaadee waxaa ka soo horjeeda masjid loo nisbeeyey cali bin abi taalib, allaha raalli ka noqdee. waa intaas warkan ibnu jubayr, allaha raalli ka noqdee, dembigiisana dhaafee una naxariistee aan ka soo qaadanay. qaybta dambe ee videogan ayaan ku arkaynaa inta meelood oo aan hadda soo akhriyey. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عز وجل وحو آيات 260 سورة البقرة كجري. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. آيات معنى هذا وحوي بل حس إنه إبراهيم يري ربي إتس سيد نف لمتي أسونو ليسد إلهي وحو يري ومياذا رمين وحو يري ها ورميي لكن وحان دونيا إنه قلبيغيغو حسلو. إلهي وحو يري haddaba 4 shimbirood soo qaado oo mid walba googo kadibna cad kastoo ka mid ah waxaad saartaa buurahaas ka mid ah kadibna u yar waxayna kuu imaanayaan ayagoo socda oo degdegaya oo dib u soo noolaaday. ogowna inuu ilaahay yahay casiis oo aan laga adkaan karin, xakiim oo xikmad miiran ah. الإمام البغوي وحو تفسير كيس آيادا كوريي وحا كمد أها الحسن يقتادة يعطاء الخرساني ابن جرير وحي راهدين وحا إبراهيم كحن باري إنو سؤاشا ويديو وحي أهد إنو سوء مري نيف بختئة أو ابن جرير يري وحو أها دمير بختكيسة أو حيبتا بدا حورنا. عطاء وحو يري وحونا أركي أو كو أركي دمير كاس لنتي بديرادة طبرية كنت الله أرلغ فلسطين أو إبراهيم وحو كنولا كنا دنتي كنا دوغي هاي مقالة ما أنت اللي يراهدو الخليل كنت على دانتا قلبيد وبيغا أردن أرلغ فلسطين. waxay wada yiraahdeen Ibraahim wuxuu arkay inay xoolaha badda iyo kuwa barigaba ay bakhtigaas ka cunayaan. markay baddu soo buuxsanto malayga iyo xoolaha baddu intay u yimaadeen ayay dameerkaas bakhtiga ah ka cunayaan. wixii ayagaas ka dhacana baddu galaa. markay baddu caarisana oo ay dib u guratana waxaa yimaada xoolaha bariga oo dameerkaas hilbihiisa wax ka cuna. waxa ayagaas ka dhacana wuxuu noqdaa ciid. markay dugaaga barigu ka gadoomaanna waxaa yimaada shimbiraha oo wax ka cuna bakhtigaas. waxa ka dhacana waxay ku googo'aan hawada. Ibraahim markuu intaas arkay ayuu la yaabay una kadib yiri rabbiyow anigu waan ogsoonahay inaad hilbaha neefkaas isku keenaysid oo ka keenaysid uurka dugaaga bariga iyo uurka xoolaha badda itus sidaad wax dhintay dib ugu soo noolaysid si aan indhahayga ugu arko oo yaqiinkaygu u kordho. ilaahay tacaala wuxuu ku yiri oo miyaadan rumayn? wuxuu yiri haa waa rumeeyey waxaanse doonayaa inaan garadkayga kordhiyo oo aan indhahayga ku arko oo markaasuu qalbigaygu xasilayaa. wuxuu doonayay inuu yaqiin kororsado ayadoo ayan wax la maqlay oo khabar ah iyo wax indhaha lagu arkay ayan isku mid ahayn. waatuuba xadiidku ahaa laysa alkhabaru kalmucaayana. xadiidka riwaayado kalena waa jiraan. mujaahid iyo cataa iyo ibnu jariir atabari waxay yidhaahdeen wuxuu soo qaatay shimbirka taawuus la yidhaahdo oo baalasha midabyada quruxda badan oo kala duwan leh oo xagga dambe u dheer iyo diiq dooro iyo qooley iyo tuke. waxaa kaloo ibnu cabbaas laga wariyey inuu yiri gorgor meeshay ka yidhaahdeen qooley. abulahab iyo umu jamiil qubuurahooda waxay ku yaalaan
dariiqan dhinaciisa iyo xaafadan aan calaamadeeda aragnay oo ay ku dhigan tahay alxujuun. dariiqan hormarayana waxaa la yidhaahdaa dariiqu almadiina almunawara. hadda waxaan saaranahay oo kor taaganahay dhalada buurta jabalu abulahab. waxaad halkaas ka aragtay burju saaca oo ku yaala dhinaca kacbada. xaafadahan waa xaafadaha waqooyi ee maka almukarama iyo galbeedkiisa ku yaala. buurtan salkeeda ayay labada qabri ee abulahab bin cabdilmutalib iyo umu jamiil bintu xarb ku yaalaan. safarkeenna videogaana halkaasaan ka bilaabi doonnaa hadduu alla idmo. meelaha uu xusay ibnu jubayr waa isku wada dhowdhow yihiin sidaan u arki doonno. buurtaas weyn oo laga shaqaynayo la burburinayo waxaa la yidhaahdaa jabalu qucayqicaan. waa labada akhshabayn ee maka midood. akhshabka kalena waa jabalu abuqubays, kuna xusan ducada uu nebi maxamed sal ly slam ku ducaystay markuu ka soo laabtay ataa'if. isagoo maraya buurta la yidhaahdo qarnu thacaalib ee almadiina almunawara ayuu ducadaas ku ducaystay sidaan u soo aragnay videogii ku saabsanaa. kani waa buurta dhaladeeda waxaana ku yaala meel biyaha lagu kaydiyo. kana waa burju saaca oo ku yaala dhinaca kacbada. waxaa ka sokeeya oad arkaysaa waa jabal hotel intercontinental iyo hoteelada kale oo meeshaas ku yaala. waxaad u jeedaa bi'ru dhituwa oo uu nebigu sala allahu calayhi waali wasalam ku hoyday habeenka jimcuhu soo galeehiyo 20ka ramadaan ee sanadka 8aad ee hijrada markuu maka furanayay. waxaad halkan uga jeedaa dhalada buurta jabalu abulahab. bal siday isugu dhowdhow yihiin fiiri. meelaha uu ibnu jubayr magacaabay kaasi waa buurta dhaladeedii. kanna waa burju saaca oo kacbada dhinaceeda ku yaala iyo ashubayka ceelasheeda ah oo halkaas ku yaala. daartan cadna waa ceelka bi'ru dhituwa. halkaanuu nebigu sal allahu alay wasalam seexday jimcaha soo gala habeenka jimcuhu soo galahayay. biyaha ceelkaasuu ka qubaystay ka weysaystay. kanna waa salka buurta abulahab. halkaasay ku duugan yihiin abulahab iyo haweentiisa umu jamiil. dariiqan waxaa la yidhaahdaa ariiqu xasaan bin thaabit, dariiqa hoos mara. shacbiguna wuxuu yidhaahdaa ariiqu abujahl, ariiqu abulahab ayuu yidhaahdaa. midkan weyna waa ariiqu alcumra oo hadda la yidhaahdo ariiqu almadiina almunawara oo magaciisa waa la bedelay. dariiqan siduu u socdo wuxuu tegayaa masjidka caaisha kadibna almadiina almunawara. waxaana sii maraynaa oo aan arkaynaa markaan goyno 1800 oo mitir qiyaas. waxaan tegaynaa bartuu nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ku nastay iyo dhagaxa uu dhabarkiisa ku tiiriyey sala allahu calayhi waaalih wasalam. iyo 4 buurood meeshay ku yiileen oo uu nebi ibraahim shimbiraha uu googooyey saaray kadibna intuu u yeeray iyagoo nool oo socda u yimaadeen.
buur mid buuraha midood waa la jaray, waa la gooyey, waxaa laga dhisay meeshan ay carruurta ku cayaarayaan. meeshan ay carruurta banooniga ku cayaarayaan waxaa ku ooli jirtay mid ka mid ah buuraha uu ibraahim calayhi salaamu shimbiraha saaray. halkaana waa bartuu nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ku nastay markuu ka soo gadoomay cumrada isagoo u socda almadiina almunawara. dhabarkiisa shariifka ana wuxuu ku tiiriyey dhagaxaas taagan oo aada u jeedid. halkaas ayuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam fariistay. calaamadahan ayaana ku yaalla meeshuu nebigu fariistay agtiisa sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. waxaa buurta kale ee labaad oo dhinacan ku tiilay waa tegi doonnaa haddii ilaahay idma ayadana. dariiqan waa طariiqu alcumra oo ku geynaya masjidu caaisha calayhi asalaam. halkan waa meeshuu ibnu jubayr ku magacaabay dukaan dheer oo ay yaallaan fiir dhinaca kalena buur baa uga taalla, ay yaallaan ibriiqyo yaryar oo biyo ku jiraan oo dadka cumrada u socda ay ka cabbaan, musqusha u qaataan, ay ka weyse qaataan. waa kana bartii uu tilmaamay ibnu jubayr. weli sideedii weeye 1500 sano ku dhowaad ayaa ka soo wareegatay. 1400 iyo zaa'id ayaa ka soo wareegatay. buurta kalena waxay ku tiilay siday culummada sacuudigu sheegeen meeshan kaltanka shidaalku uu ku yaallo oo la yidhaahdo maxatatu assaacidi, oo sida uu u sheegay ibnu jubayr dhinacna 2 buurooda ku yiilay, dhinaca kalena 2 buurood ayaa ku yiilay. buurtii uu nebi ibraahim calayhi salaamu shimbiraha qaarkood saaray waxaa ku taalla maxatadan maxatatu assaacidi la yidhaahdo oo ah kaltan shidaalka laga qaato. 2 buurooda kalena waxay ku yiileen dariiqan dhinaciisa kale. kan waa dhagaxii uu nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam dhabarkiisa shariifka ah ku tiiriyey oo uu ku nastay. waa kuwana godadka ku yaalla bartuu fariistay sala allahu calayhi waaalih wasalam. waxaana laga arkayaa dhexdooda ulo bir ah oo waxaad mooddaa inuu meesha uu nebigu fariistay calayhi salaatu wasalaam ayan buuxine ay hoos ka duleesho oo ay ka maran tahay, ayna wax qubuuro u eg ku yaalla. midkan waa qubuur, waa qabri cad oo madaxii dhagaxu saaran yahay. waa kaas. waa kana sanduuqan cagaaran. waxaa dhici karta inuu ceelka biyaha macaan ee uu ibnu jubayr sheegay inuu ku dhex jiro ayaa dhici karta. bal gudihiisa, sanduuqa laftiisa gudihiisa aan aragno. buuraha kalena dhinacaas dariiqa dhinaciisa kale ah ayay ku yeeleen. waa kana gudihii sanduuqa cagaaran. xaaqin iyo bac ma istaahisho in sanduuq loo sameeyo cagaaran oo quful lagu xiro. marka qufulka lagu xiray waxaa macnihiisu weeye waxaan wax qiimo badana ku jira oo ah ceelkii biyaha macaanaa oo ibnu jubayr
wariyey in biyihiisa laga cabbi jiray, laga weyse qaadan jiray, musqushana loo qaadan jiray oo yiilay dukaankan dheer oo uu iska lahaa nin ahlu maka ah. waxaabad mooddaa in zaahir loogu bixiyey guri halkaas ku yiilay iyo beerihiisa iyo ceelkaas, kadibna hadda ay noqotay xaafad dhan oo azaahir la yidhaahdo. kanna waa aniga oo fadhiya oo ka barakaysanaya meeshuu fadhiistay nebi moxamed sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam markuu ka soo gadoomay cumrat alqadaa. waa ka gaabsaday inaan dhexda fadhiisto oo aan dhabarkayga ku tiiriyo dhagaxaas taagan. xajar godad baa meesha ku yaalla iyo biro ulo bira ah. sanduuqa cagaaranna dhabarkayga ayaad uga jeeddaa. waxaa igu masuuray markaan wiil burma waddanka la oran jiray u dhashay, reer makaana oo maka ku dhashay, oo taksi lahaa oo tagsigiisa aan soo ijaartay. markaan halkaan imid ayaan idhi anoo halkaas fadhiya igu masawir. inta masawiroo kalena anigaa qaaday. dhinacaas ayay ku yaallaan labadii buurood oo kale. marka dariiqa madiina almunawara waxaa dhinac socda xagga dhinaca midigta ah qofka u socda masjid caaisha midigtiisa dariiqu alxaji shaaricu alxaj ayaa dhinac socda. hadda dariiqii dhinaciisa kalan jooga waa tasmaxadadii buurta meeshii ku tiilay nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo shimbirta saare laga dhisay kaltankii. waa kaas dukaankii ay biyuhu yiileen siduu ibnu jubayr u wariyey, laga cabbayey, laga weyse qaadanayey, musqushana lala gelayey. waagaas dariiqan saas ma ahaan jirin. waxaan dhirta dhexda ku taalloo kala qaybsanna ma jirin. hal dariiq unbuu ahaa. marka waxaan arki doonnaa labadiisa dhinac waxa ku ooli jiray ayaan arki doonnaa haddii ilaahay idmo, oo welina maanta ku yaalla. waa kaas dukaankii ibnu jubayr uu xusay oo derbiyadiisu midabka bunniga ah leeyihiin. iyo meeshuu nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam fadhiistay iyo dhagaxuu dhabarkiisa sala allahu calayhi waalihi wasalam ku tiiriyeyba, iyo meeshii carruurtu ku cayaariyeen oo laga gooyey buurtii uu nebi ibraahim calayhi salaamu qaar shimbiraha ka mid ah go'ooda uu saaray. haddii halkan aad u raacdo dariiqa waxaad tegaysaa madiina almunawara iyo masjida caaisha oo ka horeeya. haddaad dhinaca kale u raacdidna oo bidixdeeda ah waxaad tegaysaa kacbada. xaafaddan waxaa la yidhaahdaa xayu azaahir. waa dhinaca bidixda ah markaad maka ka timaado oo aad masjida caaisha u socoto. xaafaddan waxaa la yidhaahdaa azaahir. waxaad arkaysaa oo aan ka fogeyn isbitaalkan oo la yidhaahdo
مستشفى ملك عبد العزيز ayaa bartuu nabigu fariistay sallallahu alayhi wasallam u dhow kaasna waa jaamacadda gabdhaha kulliyada gabdhaha weeye waa kana isbitaalkii mar kale مستشفى الملك عبد العزيز ayaa la yiraahdaa markaad maka ka timaado waxaad arkaysaa midigtaada markaad barta joogto rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam fariistay buurtaasaad arkaysaa oo midigtaada waxaan oo dhan waxay ku yaalaan midigtaada markaad u socoto masjid Caaisha waan dhex galay buur weeye kulli buuro weeye buuro gaaban oo la kor degay weeye tani waa taas waxaadna halkaas uga jeedaa buurtaas gadaasheeda burju saaca oo ku yaala kacbada dhinaceeda waa kaas burju saaca dhanka bidixdaada markaad masjid Caaisha socotana buurtan aad arkaysaa uu dhaladeeda ku yaalo qasrigaas burburay xaafadan uu ku yaalana waxaa la yiraahdaa xayu ashuhadaa